بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار دقدقة soo dhacaysa doontii xandala ee ku soo socotay Gaza oo laga dhaxalay maadooyin kiimika ah oo gubanaya. المهم أخبارtaasi faafaynteeda insha Allah taala isdul taagi doonaa. Mareykanka oo dabcan hadalkii awal bal loo maleyn jiray afkiisa ku balbalaariyay dhinaca iyo Suuriya dabcan xaaladii ugu dambaysan ka hadlaynaa aan soo bilowna hal mar Netanyahu shalato arintii muxuu ka waday ama معناها ما أنتو سنين يعني حلق عن دبي وكل لباتنك جولاي وحولها محكمة دي وكباخذي واللي بيسدح مع الموضوع اللي وإنه نستها نعم شكي معاركة قبين سيدي أصوب حي وحال ليه هاي ما أنتي طبعا أريقا خميستي لصوت عفبا قرشوا حاجري أي كيف كرينا نتنياهو يقولين كله معناها إن محكمة دا لها كيو لكن ما على سوسو خابر قاب كيلو هكيا معقول سيكوتاي ugu dambeyn waxa la soo jeediyay sida lagu hakin karo waxay tahay ugu fiican hadda in yani caloosha laga haya sunu cabay balaaya ku dhacday in la dhaho ila in badan ayaa xanuun oo sheegtay oo xanuuno kala duwan ah laakiin markan cuntadii oo cunay ayaa sun ku jirtay ama cunto khariban ay ahayd kada in la dhaho qorshahaasi almuhim arinta naftirka ay baarida ku socota laakiin fashila socda sida ahaataba macnaha dhinaca kalena dabcan waa laga ogolaaday oo maanta oo isniin ah moonin aadin berida marshaas waa ma aadi doona sida ay xaaladda tahay لكن أرنتها صوب حيسا لنا كale سوريا waxaa socda dad gureyntii dadkii shacabka ahaa gaar ahaan carabtii badweynta sunniyiinta ahaa yani kuwooda waliba adiga lagu tilmaamay in ay aad iyo aad ugu dhex jiraan oo ogo si adiga loo degan yahay waxay tahay guud ahaan 90% taqriiban waa duruusta Suudiga dadka degan tobanka kale marka ay sunniyiinta ama badawiga ah ayaa laba qab u degan qaybna سويدا بنان كده دقيقين أريجا بنان كده مرة هنا يعني كم التهاي لكن ضرف جيسكا قيب يرى مركو جودها كوجرتا قيبتي جودها كوجرتا مركا أو أي كوجران ودتك الإباتات أوبضن أي كل عضي أي عندما دي دروست أي لاين لاوعين أي أفضوبتين أي وحرامتك كوا ويا مركو كوا أي دولات هذا أي بتبادين يسو أو أي كحينيس بسسكا سلا أصفا تقريبا شلته أي أرنتها باللعبة إلا أي مانت ويسعتها مركا المهم ضد بدن أي لقى صاري لنا كلام مريكا محولية بل أرنتها إلى فيه وإرجع جارك أمريكا كأخا بلسان سوريا وحولية إسرائيل تفضله إسرائيل وحي فضيلة إساء سوريا مجزأة سوريا أخي خيبسا أو أنا هيسن لهين دولة حلقة هذا الكيا حسوس تشالي إن معناها أرنتها حلقة كشكني إسرائيل سيدي أسعته أي نظام كذا qaabkay u dhaqmay marka afiis tabcan sidaas ay ahayd laakiin hadda Mareykanka wuxuu leeyahay Israa'iil ma doonayso Suuriya oo hal nidaam leh caalamka ma doonayo hadan ku dhaxarsan annagana Soomaaliya hal nidaam leh Soomaaliya hal ah Soomaaliya wada jirta wuxuu doonayaa caalamka halkaasi lan oo mid walba midka kale cadow ku yahay mid walba midka kale ku dhagan yahay umad iswada haysata أنا سعون أدونك إيه واحد كسر بقى أنا سعون وأيضا إسكو مشغول سن سواء مخلي جرين لبعته وقدر نقفك النفس دي سلوه مشغولية لبعته وروح عاد كسر عن كرت مرة هرمر بنجلو تصالحها مثلا دتك بروبلم ككودع خويسات فاميلي بروبلم ككودع بل أوفر صلاح على دوسيته أدونك بركمها يعني شخائي نولال كله هالكا إسكدك أي إسكو مشغول سن نينكي قبل يوكل الله ده قبل نينكي كلا الله ده لبعته محي كذا لكن مركا اسكو فرحسay maxaa dhacaya wax walba way hogaagsan yihiin xaaladda waxa la mid ah marka wadanka asaga isku mashquulsan halka inta ka halka hormar ma gaarayo aad u adagta aad marka muhiim ergeyga Mareykanka ah ayaa afkiisa wuxuu ku balbalaarinaya oo leeyahay Israa'iil waxay doonaysaa Suuriya oo kala qaybsan mar rabta Suuriya xoog leh mar rabta Suuriya hal ah waan hadee qof walba fahmi karaya ma doonaysaa in waalidka oo dhintay ama sirriyaal lagaga soo cumreeyo inta ka dhima bisha muharram oo kamid ah bilaha xurmada leh wax ka yar $300 ayaa lagaga soo cumreynaya shirkadda At-Taqwa ayaana ku qabanaysa oo ku sameysay qiimo dhimis aad u ballaaran waxaad heli doontaa muuqaal muujinaya qaabka cumrada u dhacday wixii faahfaahin la xiriir shirkadda At-Taqwa xajan cumra iyo telefoonada shaashada kaaga muuqdo dugsiga casriga ee markaas sultan online waxaad ka baran kartaa xifdiga quraanka kariimka higaada luqadda carabiga culumta shariicada iyo tarbiyada awlaada hab casri oo online ah adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda dhinaca kale aanu imaano arintan
culus ee ayaamahanba sida loo soo warinayay horta doontan sida caadada ahayd ee jadwalkeeda koowaad uu ahaa 18 la soo dhaafay ama ugu dambeyn 19 bishan July ay ahayd inay Gaza joogto sida jadwalku ahaa laakiin maxaa ku dhacay way hakadkan maxay shalay u soo baxday sababse wax u dhaceen ka waran hadii lagu dhaho Israa'iiliyiin dad taageersan ama Mossad ku tilmaan sirdoonkooda iska dhig sida loo badanayo waa sidaas ayaa Talyaaniga يعني waa garanaysa adiga Yurub dhan meel dhan Iran ay dhax fadhiyaan iska dhaaf Sacuudiga dhax fadhiyaan meel walba almuhim doontii dadkii saarnaa hotelada ay deganayeen iyo doontii naftirkeeda ayaa meel alla meesha galaan wala yani ugu mudaharaada waa maxaan ku dhahaa yani culays la saaraa doontii aadayaan waa khariban tahay inta ka dhacday sidaan xaaladda ayaa ma dhan ba waxa lagu wareersanaa doontan maxaa ku dhacay sidaas oo kale waxa la ogaaday markii dambe dabcan doonta inay yani qolooyinkan dadka markaasi adiga rabay inay soo fuulaan ka hor istaagnaa in ay idin dara sameeyeen sida ahaataba waxay ku jireen mushkilo dada la dagaalamay ogow mudaharaadayaashu waa la iibsadaa dada profession kooda adiga waxa tahay professional mudaharaade ayaa tahay lacag qaadataa isbuucii ku soo dhacda bishii ku soo dhacda 5 mudaharaad ka qayb galaysa ama 7 mudaharaad ka qayb galaysa caadiyan waa profession yani waa dada ku shaqeysta almuhim dadkaas ma jawaasiisa la laazim ay jawaasiis yihiin qaar jawaasiis qaarna ma ahan oo shaqay u tahayba caadiyan adduunka waa laga yaqaana adi sida ahaataba dad noocaas oo kale lagu saliday ayaamihii ugu horeeyay dhammaysay u qasay matoorkii iyo haleysmadii doonta iyo kada iyo waa la hagaajiyay kala arag way soo shiracdeen way soo bixeen mise waxa bal arkaya akhbaartii degdegta waatana marka ay soo socoto cabaar ay ku soo jirta badda jidka ku soo jirta nihray jid ma ahane waa iska jidka dabcan badda ku soo jirta waa badoontii waxa laga dhaxlay maado oo gubanaysa oo yani cidii ku dhawaata gubaysa ama meeshay taabato gubaysa ayaa lagu soo dhaxqiyay kala carar waxay u badan tahay marka inaynan socon karin marka munadamaadka hay'adaha caalamiga waxay leeyihiin arintan waa jarimatu harb waa dagaal dambi dagaal yani waa arin aad yani u xoog badan marka la fiiriyo xagga dambiga maxaa yeelay dadka nafafkooda ayaa halis la geliyay dadka qaarkiis falqayna waxay leeyihiin hadda dad caruur dilaaya guriyihii dhulku ku daray isbitaaladii sida macnaha dhulku ugu daraaya oo qarxinaya maalintan u daahayaan marka waxa looga shakisan yahay sirdoonka Israa'iil sida la leeyahay dabcanna dadka qaarkiis waxay leeyihiin yaa sameeyna arintan oo aan ayaga ahayn sidaas oo kale waxa la isweydiinayaa say ugu suura gashay alaabta noocan oo kale inay doon Israa'iil aanan joogin oo Talyaaniga joogta inay intay u tagaan ay meeshii ay ka soo bixaysay ugu tagaan ay intaas mar kharibaan alaabtana soo saaraan say wuxuu jiraan balse kula tahay macna say macquul ku noqon kartaa ay ugu suura gashay qolooyinkan inay sida ku sameeyaan sidaas oo kale xooga inta leeg miyay ku leeyihiin wadamadan Yurub dabcan aad warjal marka waxa laga hadlayaa marka qaarkiisa inkastoo inta badan la dhaho madaxda ugu waaweyn ay focus ka saareen siyaasadoodii hore madaxda ugu waaweyn ayaga kuwa yareen macnaha shaqaalahan u sameeysan oo laazim aan qofka inuu yahuudi yahay ama Israa'iili yahay wixii la midka lacag dabcan dadka qaadana inta wixii la midka almuhim arintaas jirta markabka ama doonta wixii ka soo kordha waan arki doonaa ma laaban doontaa sida u badan tahay sidaasi ama hore u socon doontaa oo meel kale ku xiran doontaa lama yaqaano laakiin suntaas dhacday dada ku dhaawacmay ilaa hadeeta lama yaqaano laakiin akhbaartaas la soo wariyay يعني وانا ادي دونت ماشي كلي inaynan si soconayn u badanta sida leeyahay wixii soo kordha video wixii ayaan ku soo sheegay hadii wax soo kordhan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma rabtaa inaad barato sida lacag xalaal ah looga sameeyo online ku soo biir dulmidi.com oo hel koorsooyin faahfaahsan oo ka caawinaya inaad horumariso xirfadahaaga waxaan hadda u fududeynay dadkeena inay lacag ka sameeyaan internetka dulmidi.com waxay bilowday barnaamijka affiliate-ka halkaasoo aad ku kasban karto ilaa 30% commission adiga oo dadka kale u gudbinaya koorsooyinkeena ma jiro wax maalgelin ah kaliya iska diiwaan geli hel linkaaga gaarka ah si aad u bilowdo lacag sameynta kamid noqo kuwa lacagta xalaasha ah ka sameeya internetka haddii aad u baahan tahay caawinaad nala soo xiriir lambarka ka muuqda shaashada qoraal ahaan ama cod ahaan hana soo wicin booqo dulmidi.com oo bilow lacag sameynta maanta dugsiga casriga ee markasta sultan online waxaad ka baran kartaa xifdiga qur'aanka kariimka higaada luqadda carabiga culumta shareecada iyo tarbiyada awlaada hab casri oo online ah adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ma doonaysaa in waalidka oo dhintay ama sirriyaala lagaaga soo cumreeyo inta ka dhima bisha muxarram oo ka mid ah bilaha xurmada leh wax ka yar $300 ayaa lagaaga soo cumreynayaa shirkadda At-Taqwa ayaana kuu qabanaysa oo kuu samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran waxaad heli doontaa muuqaalo muujinaya qaabka cumrada ee u dhacday wixii faahfaahin la xiriir shirkadda At-Taqwa xajaan cumrah iyo telefoonada shaashada kaaga muuqdo